isagoo uu sugayay in rasaas ooda looga qaado naftana la dhaafiyo sida kol hore uu naf u gooyay ayuu ku helay cafiskadiis ah anigu saacin maayo labada nin waxaan xariga waa ka furayo iyo in uu sii noolaado waa sheekada Faysal Abshir oo aan halkan idinku falanqeyn doono bal suuray adigoo lagu geeyay tiirka toogashada laguna fidiyay cafis bal dareen ahaan sidoo noqon lahaa deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal maanta waxa ka dhacday mid ka mid ah qisooyinka cajiibka xambaarsan isla markaana dhif iyo naadirka ah in ay dalkeena ka dhacdo marka loo eego dilalka sida fareerka ah loo geesto iyo shakhsiyaadka geesanaya oo marka maxkamadda ay xukunto ay adag tahay in dib looga laabto waxaan kala jeedaa in dib looga laabto oo ah in qofka marka la geeyo tiirka toogashada cafis loo fidiyo dhif iyo naadir ayay arintan tahay in ay dhacdo Nugaal maanta waxa isaga oo tiirkii toogash taagan isla markaana sugaya in rasaas ooda looga qaado si nafta loo dhaafiyo sida uu kol hore naf u gooyay Faysal Abshir oo kol hore dilay Allah u naxariistay marxuun lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Faarax Cali waxa goobtaas ku sugnaa mas'uuliin ka tirsan maamulka Puntland iyo saraakiil ciidan xubno ka socday maxkamadda gobolka Nugaal oo halka ku sugnaa ayaa saddex midood doorsiyay aabaha dhalay Allah u naxariistay Cabdullaahi kaas oo Faarax Cali waxa la doorsiyay koow in uu cafis u fidin karo in uu dalba karo in loo qisaaso iyo in uu mag ama diyo uu ka qaadanayo oo ah dhiiga wiilkiisa maadaama kol hore uu Faysal u dilay Cabdullaahi aabahan wiilkiisa oo cafis ka fidinaya ayaa si kadiisa waxa uu sheegay in wiilkiisa maadaama uu nafta dhaafiyay aan loo dhaafinaynin naftiisa isla markaana uu dalbanayo in diyo looga qaado oo uu cafis u fidiyay wixii ka dambeeyana tiirka laga furo uu dalbaday wixii inta ka dambeeyana uu dalbaday in tiirka laga furo saraakiisha ka socotay dhinaca ciidanka maamulka Puntland ee maxkamadda ayaa amray in xariga laga furo isla markaana halkaasiba ay ka bilaabatay in loo mahadceliyo aabaha dhalay marxuun Cabdullaahi kaas oo cafis u fidiyay Faysal Abshir sheegayna inuu diyo ka qaadanayo taliska ayaa la amray booliiska gobolka Nugaal inay xabsiga ku sii hayaan Faysal Abshir inta diyada ay ka bixinayaan ehelkiisa aabaha dhalay Allah u naxariistay Cabdullaahi ayaa hadalkan ka jeediyay halkaasi yaasha iyo nabadoonada iyo waqooyiga meesha isugu timi iyo dawladda ninka marxuumkii dhintay wiilkii dilay anigu saacin maayo labada nin waxaan xariga waa ka furaya waxaana doortay suldaanka ereyadii uu yiri hadaba ninka xariga waa ka furaya bal suuray dareenka Faysal inta aad ku qiyaasi lahayd maanta inta uu la eg yahay waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan ilaa dhamaadka hadii aad ila soo gaarteen nabadgelyo